Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa 5 arrimood oo aad ku heli karto xushmad. Qof walba bil'aadana waa laga maarmaan wuxuu u baahan yahay xushmad. Maanta ma jiro qof dhahaya in la xushmeeyo ma rabo. Laakiin xushmadda sidee ayaad ku heli kartaa ama aad ku kasban kartaa? Lambarka koowaad, qadari dadka kale. Haddii aad qadariso dadka kale, iyagana way ku qadarin doonaan oo xushmad ayay ku siinayaan. Laakiin haddii aad dadka qadarin oo aad dadka u muujin ixtiraam, run ahaantii iyagana kuma qadarin doonaan. Marka si aad xushmad u hesho ay dadkuna kuu xushmeeyaan, adiguna qadari dadka kale. Qadarinta maaha keliya hadalka, sidoo kale waxay noqon kartaa dadka aragtiyahooda iyo fikradahooda inaad qadariso. Qof walba bil'aadana haddii aad u qadarisid hadalkiisa, fikradiisa iyo ra'yigiisa, sidoo kale iyagana way ku aqbalayaan, wayna ku qadarin doonaan. Lambarka labaad, ahow adigu qofka aad tahay. Waxaan ula jeedaa ahow qofka adigu aad tahay. Macnaha waxaan ka wadaa tusaale ahaan, haddii ay dadku kugu bartaan inaad laba nooc tahay ama hadba si kale aad u dhaqmayso, run ahaantii dadku kuma xushmeyn doonaan. Sababtoo ah hadba weji ayaad ku dhaqmaysaa. Markaas dadku waxay ku arkayaan inaad tahay qof laba wajiile ah oo hadba laba dhaqan ku dhaqmaya. Marka dadku hal dhaqan ha kugu bartaan oo dadka xushmee. Lambarka saddexaad, dhiirigeli dadka. Macnaha dhiirigelinta waxaan ka wadaa, lacalla qof ayaa ku imaanaya. Qofka wuxuu ku leeyahay niyow waxaas ayaan rabaa inaan qabto ama saas ayaan rabaa inaan sameeyo. Haddii qofka aad ugu jawaabtid niyow waxaan ma samayn kartid, waxaan mana u qalantid inaad samaysid, run ahaantii inaad qofka sidaad tiraahdid ma wanaagsana. Waxaa wanaagsan qofka inaad dhiirigelisid oo aad tiraahdid saaxiib waad qaban kartaa qabo. Saas darteed qofka haddii aad sidaas ula hadasho wuu ku xushmeyn doonaa. Waxayna ka mid tahay waxyaabaha ay dadku ay kugu xushmeyn karaan. Lambarka afraad, xushmee naftaada. Haddii aad xushmeyn naftaada, adigana cidna kuma xushmeyn doonto. Sababtoo ah haddii aad naftaada aad liido oo dadku u arkaan inaad tahay qof liita, dee dadku qof liita ma xushmeynayaan. Qof naftiisaba aan ixtiraamin, aan kala jeclayn, waxa sharaf u ah, waxa ku habboon. Macnaha dadkuna ma xushmeynayaan. Kaba soo qaad haddii aad dadka aad xushmayso, laakiin dadku ay kugu arkaan adiga oo si kala u dhaqmaya ama iska dayacan ama muuqaalkaaga uusan wanaagsanayn, run ahaantii dadku kuma ixtiraamayaan. Dadku waa inaad hadalkaaga iyo qaabka naftaada aad ula dhaqmayso intaba waa inay wada socdaan. Lambarka shanaad, qadari dadka aragtidooda ama fikirkooda. Haddii aad dadka fikirkooda ama aragtidooda aad u qadariso, run ahaantii ayagana way ku qadarinayaan, xushmad ayayna ku haynayaan. Laakiin dadka haddii aad ka hor keento diidmo toosa mar walba oo wax walba aad ku ignore garayso, run ahaantii dadku kuma ixtiraamayaan. Dadku waxay ku wanaagsan yihiin inaad dhagaysato oo fikradooda u tixgeliso, aad tiraahdid waad wanaagsan tahay, laakiin sidaan ayaa ila saxan ama sidaan ayaa ila habboon, sidaa ma samayn karnaa. Haddii dadka aad sidaas ula dhaqanto, run ahaantii dadku way ku xushmeyn doonaan. Waxaanad noqon doontaa qof loo hayo xushmad badan oo dadkuna ay ku daydaan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa wax badan inaad ka faa'iiday. Haddii aad u baahan tahay in lagu xushmeeyo, waa inaad samaysaa calaamadaha noocaas oo kale ah.